السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضيال ميل والبو جوجتان به qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamida iyadoo dagaalka ka socda dalka Itoobiya caalamku ku sheegay inuu yahay dagaal ahli ah hase yeeshee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay inuu yahay dagaal u dhaxeeya dowladda federaalka iyo xoogga argagixisada ayaa la soo sheegay dagaalka dalka ka socda inuu wajiyo badan yeeshay iyadoo dalalka caalamka intooda badan ay taageero weyn ama dowladaha quwadaha leh ay u sheegeen xoogga TPLF garab taagan yihiin xoogga TPLF ayaa la soo sheegay inay taageero ballaaran ka heleen dalalka Mareykanka midowga Yurub hase yeeshee dowladda federaalka Itoobiya uu hoggaanka u hayo Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegtay inayna marnaba ka hadhi doonin xoogga mucaaradka ilaa ay gobolka Tigreega laga saaro gabi ahaanba qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamida maxkamadda ugu sarreysa dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay dambi ku heshay taliyihii hore sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Asafe maxkamadda ayaa sheegtay Getachew Asafe meel kastoo lagu arkaba in maxkamadda la horkeeno isagoo maxkamadda ka maqan lagu xukumay ninkaasi inuu yahay dambilo weyn oo dambiyada uu geystay ay kamid tahay xabsiyo lagu sheegay in dad indhaha lagaga guray gabi ahaan dadkaasi meel ay jaaniya cilib dhigaan waqtigan aan la haynin sidoo kale booliska dowladdeegaanka Soomaalida ayaa soo bandhigay xuduud aad u ballaaran ay ku sheegeen inuu tahay arrintaasi arrin looga mahadceliyay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayagoo ku sheegay inay awoodda iyo quwadda boolisku soo bandhigay labadii sano ee dalka uu ka jiray isbedelka saddexdii sano isbedelku uu ka dhacay dowladdeegaanka Soomaalida inay booliskani la aasaasay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doonta haddayna u guda galno wararkeennii oo faahfaahsan dagaalka ka socda dalka Itoobiya dabada dheeraad sanadkii bilaha dabada la galay ayaa la soo sheegay hadda inuu waqtigu ugu xumaa marayo dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayaa la sheegay inuu wajiyo kala yeeshay iyadoo kooxaha ku dagaalamaya dalka taageeraha caalamiga kala raadsanayaan hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka ayaa uga digay dalalka xoogga TPLF taageerada xooggan la garab taagan inay ka waansoomaan isagoo sheegay ciidanka federaalku inay ka sii ruqaasan doonaan meelaha dagaalku ka socdo xoogga TPLF ayaa hadda waxay iskugu urursadeen gobolkooda ayagoo deegaano yaryar ka jooga gobolka Axmarada hase yeeshee kama turjumayso xoogga TPLF inay saacadan u barbardhigi karaan ciidanka federaalka dalka Itoobiya ciidanka federaalka dalka Itoobiya waqtigii uu Dr. Abiy Ahmed hoggaanka u qabtay dagaalka xooggan uu kula galay galbeedka gobolka Axmarada ayay si dib yar uga saareen dhul ay xoogga TPLF ku xoogaysanayeen dowladda federaalka ayaa sheegaysa inay dagaalka sii wadi doonto xoogga mucaaradkana aan looga hadhi doonin ilaa waqooyiga dalka Itoobiya ilaa ay caasimadda gobolka Tigreega makala gacanta lagu dhigo hase yeeshee xoogga mucaaradka ayaa waxay ku andacoonayaan inay isdifaaci doonaan ayaguna ay ku jiraan abaabulkii ugu cuslaa afhayeenka TPLF Getachew ayaa waxa uu sheegay in abaabulkii ugu dambeeyay ay marayaan xoogga TPLF ayna diyaar u yihiin gobolkooda iyo shacabkoodaba inay difaacaan asagoo sheegay xataa inay ka sii bixi doonaan gobolkooda ay gudaha kale dalka Itoobiyana ay gali doonaan dowladda federaalka ilaa waqtigii uu ra'iisul wasaaraha dalka uu ka soo laabtay jiida hore dagaalka ay ra'iisul wasaaruhu wuxuu sameeyay kulamo uu la qaadanay saraakiisha ciidanka maxkamadaha iyo dowladda inteeda kale isagoo xiriir heer caalami ah dalal badan oo caalamka la sameeyay dagaalka Itoobiya ka socda ayaa moodaa hadda inuu waji kala yeeshay iyadoo la isku qalab urursanayo lana sheegay inuu dagaalka hadda uu ka qaraadaan doono dagaaladii hore soo dhacay iyadoo intii hore xoogga mucaaradku loo gacan haadinayay hase yeeshee la sheegay inay isdhigtay awood dheeraadana isbidan dowladda federaalka ayaa sheegaysa weerarka labaad ee qaadi doonta inay ku hakini doonto ilaa ay xadka Tigreega soo xidho
ayadoo dowladdu ay ku dhawaaqday dalka Itoobiya inuu hal jamhuuriyad yahay marnana aan la iskaga hadhi doonin xoogga mucaaradkana sida ugu dhaqsaha badan madaxdooda ugu sarreysa la soo qaban doono ee horseeday dalka Itoobiya inuu dagaal ka dhaco madaxda halkaasi lagu xusay waxa kamid ah Gabrasiyon Gebre Mikael Getachew Reda Getachew Asafa iyo madax badan oo ka tirsan qoomiyadda Tigreega maamulkooda qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah maxkamadda ugu sarreysa dalka Itoobiya ayaa saraakiil ka tirsan xoogga TPLF waxay maanta ku heshay dambiyo waaweyn oo ku sheegtay in raggaasi gacanta lagu soo dhigo ragga halkaasi lagu xusay waxa kamid ah taliyihii hore sirdoonka dalka Itoobiya Getachew Asafa oo lagu xusuusto 27 sano TPLF dalka Itoobiya maamuleysay inuu tacadiyo waaweyn ka geystay gudaha dalka Itoobiya maxkamadda ayaa deegaanada ay magacowday ku sheegtay Getachew Asafa inuu xabsiyo dhulka hoostooda ka sameeyay halkaana malaayiin qof ku xasuuqay saacada Najaan iyo cidhimada dhigeen inay gobolada Oromada Axmarada Birshaangulka Walaytada inuu dhulkaasi xasuuq aad u baahan ka geystay Getachew Asafa ayaa lagu xusuustaa waqtigii dowladdeegaanka Soomaalida oo madaxweyne hore dowladdeegaanka Cabdi Maxamuud Cumar uu hoggaanka u hayay in hatta afka Cabdi Maxamuud Cumar laga hayo Getachew Asafa ayaa deegaanka naga xasuuq baan ka geystay Getachew Asafa oo sargaalkii labaad ee ugu awoodda badnaa xoogga TPLF ilaa waqtigii dalka Itoobiya maamulayeen ayaa taliyihii sirdoonka ciidanka dalka Itoobiya isagoo la sheegay awood dheeraad oo ka baxsan jagada uu hayo inuu dalka Itoobiya ku maamuli jiray Getachew Asafa ayaa lagu xusuustaa inuu madaxda dowladdeegaanada dalka Itoobiya uu gacan ugu yeedhiyo isagoo markasta ku amar taagleen jiray xukunka ama madaxda dowladdeegaanada ka jira dalka Itoobiya madaxweyne hore dowladdeegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa in badan ku celceliyay Getachew Asafa inuu siyaasad khalkhal ah oo xasuuq lagu tilmaami karo deegaanka Soomaalida kula kacay isagoo sheegay in badan inuu ku soo magacaabi jiray saraakiil dusha kore uu kaga keeni jiray markastana uu khalkhal siyaasad ka abuuri jiray dowladdeegaanka Soomaalida Getachew Asafa ayaa lagu helay dambiyo waaweyn oo ka dhan ah xuquuqda bini'aadamka isagoo la sheegay inuu xabsiyo dhulka hoostooda ka qoday gobolka Oromiya Axmaro halkaasoo la sheegay in saraakiil dowladda dad shacab ah iyo dad kale oo ganacsatada saacadan lagu leeyahay loona haysta Getachew Asafa maxkamaduna waxay amar ku bixisay Getachew Asafa oo maxkamadda maanta markay xukunka ridaysay ka maqnaa in sharciga la horkeeno meel kasta oo lagu raadin karana la raadiyo Getachew Asafa sidoo kale booliska dowladdeegaanka Soomaalida oo maanta dowladtus aad u ballaaran sameeyay ayaa waxa ay sheegeen ilaa waqtigii dalka Itoobiya isbedelka ka dhacay ama deegaanka Soomaalida xukuumadan cusub ee hogaaminayo Mustafa Maxamed Cumar ee dowladdeegaanka timid in boolis heer caalami ah la aasasay ayagoo la sheegay booliskaas inuu yahay booliska ka qayb qaadan kara horumarka dhisidda deegaanka iyo amni ku soo celinta dowladdeegaanka Soomaalida sida uu sheegay taliyaha booliska Xasan Yare ayaa waxaa lagu sheegay inuu booliska dowladdeegaanka Soomaalidu hadda qalabka ugu dhameystiran la keenay iyadoo dowladda deegaanku awoodda koobaad saartay soo celinta booliska iyo sharciga iyo kala dambeynta dowladdeegaanka Soomaalida tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.